waa dilkii qorshaysnaa ee ugu naxdinta badnaa ee Hindiya ka dhacay. Waa lamaanihii dilaaga ahaa ee laba gabdhood hilibkooda jarjaray. Haddaba muuqaalka intaana bilaabin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like ka saarto siduu dad badan u gaadho anagana dhiirigelin ugu noqoto. Asxaabtaadana u sii share garee muuqaalka saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. Haddii aad nagu cusub tahay oo aad ku cusub tahay page-keena Facebook ee Maxamed Wardi Official, nagu soo biir oo follow da saar saad ula socoto muuqaalada xiisaha badan ee aan mar walba soo geliyo channel-ka. aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qaaliga ah. Waa dilkii qorshaysnaa ee naxdinta badnaa ee ka dhacay Hindiya. Lamaanihii isqabay ee dilaaga ahaa ee doonayay inay aargoostaan. Bishii June 2022 booliska Karnataka ee Hindiya waxay heleen laba gabdhood oo la dilay jidhkoodii. Haddaba labada gabdhood ayaa jidhkooda la jarjaray waxaanay boolisku ka heleen meel u dhow marin biyood. Labadan gabdhood ayaa jidhkooda la kala dhigay meel isku jirta 25 kiiloomitir. Haddaba labadan gabdhood si xun ayaa loo dilay oo qaybaha sare jidhkooda waa la jarjaray oo way maqnayd. Booliska Karnataka ayaa baadhitaan dheer sameeyay waxaanay doonayeen inay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiiglihii dilay labadan gabdhood. Booliska ayaa baadhitaan ku sameeyay labadii moobil ee ay lahaayeen labadan gabdhood. waxaana booliska u fududaatay inay gacanta ku soo dhigaan dilaagii dilay labadan gabdhood. Haddaba booliska ayaa gacanta ku soo dhigay nin la yiraahdo Sidalingaba oo 35 jir ah iyo xaaskiisa oo lagu magacaabo Chandarakla. Haddaba lamaanahan ayaa labada gabdhood ee la dilay u yeedhay oo gurigooda ku casuumay, kadibna way dileen oo nafta ayay dhaafiyeen labadii gabdhood. Ninkan boolisku ay soo qabteen ee dilaaga ah ee lagu magacaabo Sidalingaba ayaa booliska u sheegay inuu dilay 3 dumar ah uuna qorsheynayay inuu dilo 5 kale. Markii la weydiiyay sababtu gabdhaha u dilay, waxa uu sheegay inuu ka aargoosanayay maadaama xaaskiisa ay ku kalifeen inay sinaysato. Haddaba warar kale oo Hindiya ka soo baxaya ayaa sheegaya labadii gabdhood ee la dilay inay lamaanahan ay dhaceen oo ay ka qaateen dahabkoodii iyo waxay siteen. Dilalka Hindiya ka dhacaya ayaa sii badanaya marba marka ka dambaysa. Kiisas naxdin badan oo kala duwan ayaa maalin walba Hindiya ka dhaca. Kiisaska ugu naxdinta badan ee saameynta ku yeesha Hindiya ayaa laga soo sameeyaa filimaanta. Filimaanta waxaad ku daawateen kiisas dil ah oo la yaab leh. Waa kiisas hore u dhacay oo Hindiya ka dhacay, kadibna sheekadooda ayaa film laga soo sameeyaa. Asxaabteeda qaaliga muuqaalka like ta saara siduu dad badan u gaadho anagana dhiirigelin ugu noqoto. Muuqaalkana sii share gareeya oo asxaabtiina gaarsiiya saan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale. Waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh waynooyo muuqaalka xiga insha Allah.